السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waa anigoo ah Macalin Shariif videogan waxaynu ku eegaynaa social service-ka sida ay carruurta u qaataan waa maxay sababta ay u qaataan carruurta waalidka miyaa qaldan mise social-ka qaldan maxaa u furan waalidka carruurta laga qaatay oo ay sameey karaan marka hore subscribe sa channel-kan lana wadaag walaalaha kale si iyaguna uga faa'iideystaan fadlan dhamaystiro videogan wax badan ayaad ka faa'iideysaan waa maxay social service waa qayb ka mid ah dowladda hoose ama local authority-ga 1970kii ayaa la aasaasay social service-ka si loo helo hab dhammaystiran oo lagu daryeeli karo bulshada oo dhan social service-ka ama daryeelka bulshada waxay ka kooban tahay qayb dadka waaweyn iyo qayb dadka yaryar qaybta dadka waaweyn waxaa lagu daryeelaa dadka naafada ah dadka waalan iyo dadka daroogada ay dilootay qaybta dadka yaryar waxaa lagu daryeelaa carruurta iyo da'yarta waxayna ka ilaaliyaan carruurta waxyeelada soo gaari karta sidaa darteed social service-ka waxaa saaran waajib sharciyeed inay hubiyaan in carruurta ay ka bad qabaan waxyeelo kasta oo soo gaari karta qaasatan kuwada nugul waa maxay waxyeelada loo geysan karo carruurta waxyeelada loo geysan karo carruurta waa 4 emotional abuse physical abuse sexual abuse iyo neglect emotional abuse waa waxyeelada saameysa qaabka uu canugu u soo korayo tusaale ahaan waa canuga oo lagu yiraahdo bax iga tag hooyo kuma ihi waan ku nacbahay waxay kaloo noqon kartaa canuga oo arka waalidka oo dagaalamaya murmaya iskuna dhaaranaya reer kasta oo isdagaala ama murankooda uu dariska ku soo baxo ama ay carruurtu sheegaan in waalidkood markasta ay dagaalamaan waxaa qasab ah inuu social soo dhex galo sababtoo ah waa emotional abuse carruurtana dhibaato weyn ayaa kasoo gaari karta sida nacayb fara badan iyo in ay isku arkaan inay yihiin kuwa ayaan daran maadaama waalidkooda uu dagaalamayo markasta haddii ay kusoo koraan nolosha caynkaasa waxay moodayaan inay tahay mid wanaagsan sidoo kale waxay qaadi karaan argagax iyo sas taasoo saameyn weyn ku yeelata hurdadooda khaasatan marka waalid xanaaqsan uu albaabada jajabiyo ama miisaska haraatiyo physical abuse waa in canuga dhaawac loo geysto jirkiisa sida in la dharbaaxo la haraatiyo ama la qaniino si ku talagal ah waxay kaloo noqon kartaa in canuga loo sameeyo jirro been abuura taas oo ka dhigaysa canuga oo caafimaad qaba in loo maleeyo mid jiran sidoo kale waalidka hadduu ka celin waayo qofka waxyeeleynaya canugiisa iyaduna waa physical abuse sexual abuse waa waxyeelada galmo ee loo geysto carruurta qofka xadgudubka geysanaya wuxuu isticmaalayaa cagajuglayn sasabasho khiyaano iyo handadaad si uusan canuga u sheegin waxay kaloo noqon kartaa in waalidka uu ka warqabo waxyeelada loo geysanaya canugooda laakiin aysan waxba ka qaban neglect waa in canuga baahidiisa ilmanimo la dabooli waayo tusaale ahaan in la siin waayo dhar nadiif ah jiif nadiif ah iyo cunto wanaagsan oo ku filan waxay kaloo noqon kartaa in canuga la geen waayo ballamadiisa dhakhtarka ama uu tagi waayo iskoolka waqtiga saxda ah asagoon ka daahin sidoo kale canuga haddii looga tago guriga asagoo keligiisa ama loo adeegsado inuu haayo carruur kale iyaduna waa neglect ama dayacaad social service-ka waxay ka walwali karaan inay carruurtu soo gaarto 4 waxyeelo ee aan soo tilmaamnay haddii ay sii joogaan guriga ay ku nool yihiin waana sababta ay u qaataan carruurta yaa socialka u gudbin kara carruurtaada social service-ka waxaa u gudbin kara carruurtaada dariskaaga macallimiinta canugaaga GP-ga cisbitaalka iyo qof kasta oo arka carruurtaada oo dayacan ama loo geysanayo waxyeelo socialka markii la wargeliyo carruur dayacan ama canugaaga waxay sameynayaan initial assessment oo ah baaritaan hordhac waxaa kula soo xiriiraya social worker
wuxuu kaala hadlayaa canugaaga. Ujeedadu waa in la hubiyo warbixinta laga soo gudbiyo canugaaga inay run tahay iyo in kale. waxaa laga yaabaa inay gurigaaga yimaadaan oo la hadlaan canugaaga. haddii warbixinta laga soo gudbiyo canugaaga ay been tahay, carruurtaadana ay isku jirin wax dhibaato ah, feelkooda meeshaas ayaa lagu xiraya. socialkana faraha ayay kala baxayaan. haddiise warbixinta la soo gudbiyey iyo waxa ay ku arkeen carruurtaada ay is yeeshaan oo ay warbixintu run tahay, laba mid ayay sameynayaan: inay caawinaad kuu fidiyaan si looga hortago dhibaatada ku iman karta carruurtaada, iyo in ay sameeyaan single assessment oo ah baaritaan dheeraada. go-aankooda waxay ku saleynayaan heerka waxyeelada loo geystay carruurta iyo midda ku iman karta, iyo inaad adigu tahay shakhsi la shaqayn kara iyaga si looga hortago dhibaatada ku iman karta carruurtaada. single assessmentiga ama baaritaankan qotada dheer waxay ku eegayaan tallaabooyinka ay iyagu qaadayaan iyo inaad awood u leedahay inaad sii hayso carruurtan iyadoo aysan dhibaato soo gaarin. social worker ayaa la soo xiriiraya labada waalid. wuxuu la hadlayaa carruurtaada, wuxuu soo booqanayaa gurigaaga, wuxuu kaloo la hadlayaa dhakhtarka carruurtaada, macallimiintooda iskoolka iyo booliiska. wuxuu weydiinayaa wax kasta oo ku saabsan carruurtaada iyo reerkaaga. markaas go-aan ayay gaarayaan. go-aankan waxaa lagu qorayaa report. go-aankan wuxuu noqon karaa 3 mid. wax laga walwala ma jiraan, carruurtaadu way fiican yihiin, wax khatar ahna kuma jiraan. sidaa darteed faraha ayaa lagaa qaadaya. waxyeelaa loo geystay carruurta ama waxyeelaa ku iman karta, sidaa darteed isha ayaa lagu haynayaa si loo hubiyo in xaalku uu soo wanaagsanaado. waxaa la qabanqaabinayaa child protection conference oo ah shirka carruurta. ujeedada kulankan waa in la qoro child protection plan oo loogu talagalay in looga ilaaliyo carruurta dhibaatada ku iman karta. kulankan waxaa kasoo qaybgalaya labada waalid, dhakhtarka carruurta, macallimiinta iskoolka, health visitorka iyo booliiska. qof kasta waxa uu ka sheegay reerka waa la qorayaa. child protection planka waa dukumenti ay ku qoran tahay waxyeelada loo geystay carruurta, waxa loo baahan yahay in la sameeyo, cidda sameynaysa iyo goorta la sameynayo. waxaa kaloo ku qoran caawinaadda ay u baahan yihiin reerka iyo waxa la sameynayo haddii ay wax isbedeli waayaan. child protection planka dib u eegis ayaa lagu sameynayaa 3 bilood kasta, haddana 6 bilood kasta. haddii ay wax soo hagaagaan, carruurta balaanka waa laga saaraya, feelkoodana waa la iska xiraya. haddiise wax ay hagaagi waayaan, waalidka maxkamadda ayaa lala korayaa si carruurta looga qaato. socialka warqad ay u dirayaan labada waalid ay ku ogeysiinayaan inay maxkamad la korayaan. warqadan waxaa ku qoran goorta maxkamadeyntu ay dhacayso iyo sababta loo maxkamadeynayo inay tahay in carruurta laga qaato. waxaa kaloo ku qoran waalidka inay si degdeg ah u qabsadaan lawyer. maxkamadda haddii ay ku qanaan cadeymaha socialka ay keeneen ee sheegaya in carruurta reerkan ay khatar ku jirto, waxay siinayaan socialka warqad ay ku qaadan karaan carruurta. haddiise aysan ku qancin caddaynta, carruurta waxay la joogayaan reerka. waxaa laga yaabaa inay maxkamaddu tiraahdo ha lagu ilaaliyo carruurta reerka. go-aanka lagu qaadanaya carruurta maxkamadda unbaa gaari karta. socialka iyagu cadeymaha unbay la imaan karaan meesha. imise ayaa ku baxda carruurta socialka ay qaataan? carruurta socialka ay la wareegaan sanad kasta waxaa ku baxa 4 bilyan oo pound. weliba waxay usii baahdaan lacaga dheeraada. halkii canug ay la wareegaan waxaa ku baxa sanadkii 33,000 oo pound. taasu macnaheedu wuxuu yahay bishii waxaa ku baxa 3,000 oo pound, halka isbuucii ay ka tahay 700 oo pound. waa lacago aad u fara badan. sidaa darteed carruur qaadashadu waa xalka ugu dambeeya. maxaad samayn kartaa haddii ay kusoo wajahdo arrintan? isdeji, ha xanaaqin, hana qaylin, hana isku dayin inaad u cagjuglayso socialka, sababtoo ah waxay sii xumeynaysaa xaalkaaga. waxaadna u muuqanaysaa inaad tahay qof khayru mas-uula oo ku qayliya carruurta.
hubi inaad fahanto waxa dhacaya iyo waxa socialka ay ka doonayaan inaad samayso. haddii aadan fahmin weydiiso inay kuu sharaxaan ilaa aad ka fahmayso, sababtoo ah haddii aadan fahmin waxa ay kuu sheegayaan ma samayn karaysid waxa ay kaa doonayaan. ha ka xishoon inaad weydiisato caawinaad, sababtoo ah taas waxay tusinaysaa inaad doonayso isbeddel iyo inaad la shaqayso socialka si carruurtaada looga ilaaliyo dhibaatada. inaad la shaqayso socialka macnaheedu ma ahan inaad ku raacsan tahay wax kasta yiraahdeen, ee waxaad doonaysaa in carruurtaada ay dhibaato soo gaarin. markii aad la shaqayso socialka waxaad u muuqanaysaa inaad tahay qof walwalsan oo doonaya inaysan carruurtiisa dhibaato soo gaarin. haddii lagu weydiiyo inaad saxiixdo dukumiinti, hubi inaad fahamsan tahay waxaa saxiixayso. haddii aadan fahamsanayn, lawyer raadso. qoro wax kasta ay kuu sheegaan socialka iyo waxaad u sheegtay intaba. socialka haddii ay ku weydiistaan inaad samayso wax oo adigana aad ku tiraahdo waan samaynayaa waxaas, hubi inaad samayso waxaas. qorana waqtiga aad samaysay, waxa aad samaysay, lana wadaag iyaga marka dambe ee aad la kulmayso. haddii socialka ay kuu soo diraan warqad ay ku qoran tahay letter before proceedings, waa inaad durba lawyer qabsato. ugu dambeyn, in carruur lagala wareego waalidkood arrin sahlan maaha. waxaa ku baxaya qarash aad u fara badan, waqti iyo juhdi aan la dhayalsan karin. sababtoo ah socialka waxaa laga doonayaa inay soo ururiyaan caddeymo aad u fara badan oo ay maxkamaddu ku qanci karto. sidaa darteed waxaa hubaal ah waalidka laga qaatay carruurtiisa inay dayaceen carruurtooda, sidaasna looga qaatay carruurta. waa macquul inay dayacaadaasi u geysay aqoon darro iyo inaysan garanayn dhaqanka waddanka. markastoo aad eegto baraha bulshada waxaad arkaysaa waalid ooyaaya oo leh carruurtaydii ayaa la iiga qaatay cunsurinimo iyo muslim nacayb darteed, taas oo been ah qaldaysana bulshada inteeda kale. waxaa u wanaagsanayd waalidkaas inay la wadaagaan bulshada inteeda kale qaladaadka ay galeen si ay dadka kale oo feejignaadaan inay ku dhacaan qaladaadkaas. laakiin dadkeennu waxay noqdeen kuwa qaldan haddana isu haysta dhibane. waxaynu u baahan nahay inaan dib u eegis ku samayno reerkeenna oo aan saxno waxa qaldan. fadlan la wadaag walaalaha kale. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.